xukunkaasi waxaan aragnaa inuu yahay mid cadaalad dare ah. maxaa dhacay dadkii dhibaatada geystay ee xiranayay dadka mid ayaa lasii daayay. marka waxaad leedahay xukunkaasi cadaalad darru ahaa, sababtu maxay tahay? sababta aan dhahay waxay tahay meeshaas 7 qofood ayaa eedeysnaay. hal qof waa maqan yahay asigoo loo jeedo xaafadda dhinaca ka maraay ayaa hore loo qabanaynin. waxaa lagu xisaabtamay labadaas qofkaasna waa maqan yahay. cid hadda soo qabanaysa iyo cid aan ka sugeyni ma jiro. tan in la sameeyo 4taas qof meesha laga badbaadiyo, kadibna 3 rafcaan been ah inta loo qaado la dhaho rafcaan bay qaateen, xukunkii waa laga dhimay, qaabkaas in lagu sii daaya ayagan wax cad. maynaan gaadhin weli racfaan iyo in la dhegaysto racfaanka, laakiin waxaan ka hadlaynaa marka hore xukunka ah in dil lagu xukumo 3 qof inay ka dambeeyeen lagu helo dilkii Axmed Mukhtaar Saalax walaalka, 4na la sii daayo. xukunkaas ma waxaad leedahay cadaalad darro ah? cadaalad darro ah xukunkaas mana ku qanacsani. maxaa dhacay dad meesha ka cadeystay dagaalka inay qofku jireen ayaa lasii daayay. aan wax hadda sanad lagu xukumay iyo wax kale xataa aysan jirin. dadkaasi waa kuwe maxay sameeyeen door ay ku lahaayeen dembiga dhacay? doorka dadkii ugu abaabulka badnaay waaye. qofkii baangada horta ugu dhufatay walaalkayga, sidii dadkii markhaatida ay cadeeyeen ayaa kamid ah. suuriyadii meesha ka dhacday inay meesha ka khirasay. marka ma aqaan kuley maxkamadda waxay arrintaas u sameysay. marka idinku go-aanka maadaama aad sheegtay inaydinaan ku qanacsanayn, racfaan miyaad ka qaadanaysaan? waxaan racfaan ka qaadanayn ma jiro. cadaalad dare kale inay nagu dhexaysaan noocaas hadii racfaan iyo waxa aan soo sheegnay. meeshan maqaayad waaye, maxkamad ma ahan. qoys ahaan maxaa kaloo doonaysaan oo maaragtay cadaalad aad ku qanci kartaan? wallahi kuley anaga cadaaladda wixii diinta ay qabtaan ku qanacsanayn. haddii la waayan waxa waaye wax kaloo hadda aan ku qanci karnaa u jirin. idinku ma waxaad doonayseen xukun aan dilahayn in lagu rido dadka lagu helo dembiga? anaga waxaan ku qanacsanayn kitaabkaas ilaahay wixii u qabo in dadkaas la marsiyo. marka meeshan waxaa taagan dadkan biyo hala siiya iyo waxaas. anaga wax biyo aan doonayn ma leh. dadkan la xukumayna haddii ay daxad iyo run ay jirto halagu fuliyo xukunka, markaas ayaan ogaan doonaa inay cadaalad tahay. marka idinku qoys ahaan wax diya ama doonaysaan? maya anaga xukun cadaalada rabbi subxaana watacaala